waxyaalaha aan ka hadlayna waxaa ka mid ahaa in casharkeennu macalinka u diyaarsan yahay uu aad macalinka gaar ahaan u yaqaano casharkan sida uu nolosha ugu dabaqi karo, sida uu uga bedeli karo jikada, guriga, suuqa, dariska. waa in ilmahaas ay wax bedelaan. macalinkan ay ku xiran tahay ardaygaas inuu wax bedelo. hadduu macalinka ka go'an tahay inuu ardaygaas bedelo oo waxa uu dhigaya aysan iska hayn macluumaad uu dusha ka hayo, xafidsan yahay, waxba u tari mayso. ardayga buug u dhiibtay, buuggii soo bartay, dushuu ka qabtay, buugga dhan buu kor ka hayaa. maxaa soo kordhay? buug labaada soo kordhay, wax kale ma soo kordhin. koobi kale cusub, nusqa thaaniya oo arday ah. waxna ma ka tartaadho, inta badan waa la iloobaa. waxyaalaha ardada iska xafidaan way iska iloobaan. shay haddaa rabto inaad iloobin waa inaad fahamsan tahay, weli dabaqaadiisana aad taqaanaa. laakiin shay la qabtay waa iska iloobiya haddaana lagu celcelin. qur-aanka dadka raba inay qur-aanka xafidaan oo ay hayaan, haddee sir qur-aan subax baa saara, subaxaasaa lagu celcelinaya si qofku u hayo. tan marka haddii shaygii nolosha wax ka bedelayso oo guriga wax ka bedelayso oo qofka dariiqa markuu marayo mas-uul uu yahay, markii uu meel maaragtay dad la joogo mas-uul uu yahay, waxaas oo dhan macallin ka soo bartay. maadadii la dhigi jiro maaragtay ahayd qofka inuu noqdo qof mas-uul ah oo wadankiisa iyo dadkiisa iyo kulli wax u ah, waxtar u ah, waa inay ka timaadaa macalinka. biyahaas aan cabnay hadda oo nin walba biyuu cabay, marka ardayga uu arkay adoo biyahaas cabay, qof qolofkaan haddaa ka fiiqdo aad dhul ku tuurto ama aad caagi tuurto, ardaygaas waa bartay casharkaas. muxuu marka cashar la haleeyuu noqday. laakiin hadduu arka adigoo meeshii qashin ku ridaaya ama haddaadan haysan hataa jeeb ku ridanaya, casharkaas wuu qaatay. marka si aan usoo noqono galaaskeenii fasal ardadu ay hamuun u qabaan inay nolosha wax ka bedelaan, wax bartaan, macalinkooda aad bay u dhegeysanayaan. waxaa la mid ah dariiqada oo wax dhigidda. dariiqada wax dhigidda inuu macalinku aad xoogga u saaro. maxay ku xiran tahay? haddaan macallin ahay waa inaan dariiqada wax u dhigaayo wax badan ka akhriyey, wax badan ka aqaana. maanta waxaa jira casharo badan oo internetka ka dhaansan, iska buuxa. fiirso, maanta markaan midda aan dhigayno intaasoo cashar oo macallin kasta uu ka hadlaayo sidee fasal loo maareeyaa arkaysaa, waxbaa ka faa'iidsanaysaa. maadadaadii lafteeda aad dhigaysay intaasoo meel oo lagu dhigaayo arkaysaa. soo fiirso, waa maraajic cusub oo helayso. marka dariiqada kala duwanaanta waa xataa macallimiintu waa kala faa'iidaystaan. war aniga arday hebel iyo arday hebel wax waa bari waaye see kula yahay, saasaa la yeelaa, saas wax ku bar. sida haddaa aan sheegayn oo kale, roobka wax ku bar. ardaygii galaaska jooga waxba niyadda u dhis, waa fiicnaanaya ardayga. waxaan u baahannahay intaan xisada ku jirno ardada inaan ka dhaafno waxaa la dhaho daalka. ka biyo daalka, casharka xiise geli. marka cabaar wadaba shay hadaf leh oo asagana wax tara, hurdadana ka bi'iya, kuna soo jiita u sheeg. hadda waxaan idiin sheegayaa sheeko yar, laakiin waxaan idinka codsanayaa ha dhegaysanina. kulligiin sii jeesta, isqaafiya, ismaqnaysiiya. sheekadaasaan sheegi rabaa, soo maaha? waa aragteen kuwa sheekada gaaban iyo sheega say noo hantaan. cabaar soo uwad ku leeyahay, albaabkuu soo garaacay. markii albaabka laga furay, assalaamu calaykum uu yidhi. lugta hore markuu soo geliyo assalaamu calaykum. maalinta kale aan dhammaystirana. inta kale waxay noo joogtaa wacalaykum salaam, maalinta kale jirtaa. lugta taagan noo taagan, maalinta kale sheekadii ma dhammaystiray. ardadeenna hadafkeena maaha sheeke, hadalkii waxa soo jeedin waay iyo inay hadaf ka faa'iidaystaan, wax ayaga dhaqankooda bedelaya. hataa sheekada la keenayo inay mid dhaqan ku asaata, luqadda wax ka tarto, luqad saxan lagu sheego, ardaygii dhaqankiisa wax ka bedesho.
ويلا والله شيك مدة وحي هذا معلم وحن اختار هذا مركو أسان وحي لك لا تك أرد سماها هذا كان برتكي لك لا تك أرد سماها وأقول أردك أهلي ولا كلا تجي لك أرد لو ما كلا تجي مرك أردك حكالها رأ يسجلي هذا 10 كمان أنت نسكوا 10 وين ورانك لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى وأنا تستل إلهي وعبر يا ما قصص له قف ولا صعدة حاجة ويساوي تابانيسا waxaasoo dhan waxbay ka faa'iideeyaan marka adiga xisadaadii xisad 10 aniga macallin baan ahay 3 shay baan dhigaa maxaa waa inaad aan su'aal ku weydiiyo inaad su'aal weydiiso inaad wax sharxayo wax kala yaana isagu imaan ilmaheena waxbarashada waa jecel yihiin dabcigeena Soomaaliduna wax ogaalka waa jecel yihiin wax ogaalka iyo qodqodka xubul istidlaac curiosity waa ku fiicanna curiosity waxa u bedeli karnaa xagga waxbarashada qofkaani inuu wax ogaado ma ihi dad iska dhowhan adduunyada waa la soconaa idaacadaha waa dhageysanaa hooyooyinka iyo awiyeenka ayaa la socda ummadahaas kale wax og ma leh taas dii la jiheeyo oo waxbarasho loo jeediyo haddii guriga dariskiina qayla aad ka maqasho subax inaad weydiisan rabtaa xalay maxaa ka jira xaafadiina oo maxaa ka galay haddii meeshan sharato iga dhigan tahay markaas aan u horeyso tan maxay tahay hawl aan lagu dirsan iskuul waxaan tagay oo kormeer u tagay macallimiin oo caraba wax ka dhigaysa gadaalan fariistay anoo fiirinaya say wax u dhigayaan ardayga marka agteeda fadhiya ardaygu muxuu sameeynaya wixii aan isku naqaan anaga waxaan qoraba waa fiirinaya saa marka oo qoraba waa dhuganaya anna macallinka qof isku aadiyo inuu arka ma rabo anoo wax qorqoraya illa macallinka daa kormeer ku tahay marka wax qorto wuxuu ku leeyahay waa bilaabo ka war hadda wax iga qoraya marka ardaygu waa iga jeestan waay waan qoray waxaan iri waxbaan qori lahaa laakiin arday agteeda fadhiya ayaa wuxuu akhrinayaa waxa aan qorayo intaas aan ku qoray warqadii wuu fiiriyay waxbaan qori lahaa arday akhrinaya oo si jeestay xag u jeestay marka xubul istidlaac waa leenahay meeshii fiican u bedelno waxaan bari karnaa ilmaha inay akhris dheer la yimaadaan waxaan bari karnaa inay iyagu maartay sheekooyin fiican keenaan waxaan bari karnaa inay aad ugu fiicannahay dhinacaas dad waxa bari ogyahay Soomaaliyeed halaba marka arintaas inaan curiosity inaan ogaano shay kasta aan ku dayno inaan buugaan maxaa ku qoran casharkan maxaa kuwa iskoolka imaanaya iskoola meelaha marka ku dhigi jirnay markaasay marka horeysa ku wadiyaa waxay ku leeyahay iskoolka mufray meeqaal lacag laga qaadaa war halka ka bilaabina bahal meeshan ku jira ka bilaabina bal meeshan ka bilaaba halka hunguri ku yaalo Allah isba ku jira waxa uga bilaabaysan maxaan dhiganayaa meeqamaadaan dhigtaa maxaan ka baranayaa maxaan ka bilow waxbarashada horeysa hulka wax ku jira ku aadin marka dhinacaas waa ku fiicanna wali ilmaheena ku fiican yihiin laakiin macallinka la rabo inuu asna ku dhiso qofka meesha ku fiican yahay looga faa'iideystaa hadaa iraha maanta ma idin sheegaa macallina waxa hadda ka hor xasuusta anagoo u dhigi xisaab qolaha waxa ardada ku dhahdaa ilmaha yararka ma idin sheegaa sida xisaabta hawada loogu qoro ilmo yarar dhigin sawa ding ilmo yar waa tijaabiyani waxba taraysa ilmo yarar وجعلهم ilmaha yarka in la amaano oo waa fiicantahay la dhaho soo ma jecla qofka meesha uu ku fiican yahay iyo waxa uu ku haboon yahay laga faa'iideystaa waaba diyaare marka waxaan ka wadnaa waxa aan dhigayno adada ma xisaabta lafteeda isku dar kala jar markaan dhigno aan ka tusno iyo noqon isku dar iyo kala jar bas engegan afar shan ka jar kama go'do maxaa sameeyay inta ka soo qaad hal inta keen 10 buu noqday tobanaad marka laga soo qaaday 10 iyo afar shan ka jar maxaan 10kaas ka baranay oo xisaab hadaan dhigayo waa in ardayga u dhigaa macnaha marinka meesha lagu dabaqo iyo dhaqanka laga qaadanayo xisaab lafteeda
waxaan kaliya haddaan xoogga saarno marinka sida looga shaqeeyo kaliya laakiin macnihii meesha lagu dabaqaayo waxaan ka baranay in wax la is amaahiyo casharka waa laga bartay ay kaliya noqonin bas xisaab waxaan kaloo ka baran karnaa waa dhici kartaa markasta inay ku aadineen alxasanatu bi'ashri amthaliha hal xaba inta laga soo qaaday godka marka la soo tabar ma noqon ma batay hadaa wax bixiso taasay kugu badanaysaa marka xiisa gelinta waxay u tahay rumayna ardada inay u tahay muhiim